wada jeestaan cadowgooda ummadda Soomaaliya cadow aan lahayn shabaab ma laha waqti la is eedeeyo lama joogo waqti faraha la isku fiiqo lama joogo waqti waxaan la joogaa aan meel uga soo jeesanayna cadowga ummadda Soomaaliyeed cadowga islaamka cadowga ummadda islaamka meel kastay joogaan waad arkayseen waxay sameeyeen 500 oo qof baa ku dhimatay intaasoo hanti ah ku burburtay islaamnimada ay noo sheegayaan bal hal sheego islaamnimadaas meesha ka timid ha sheegaan qofka muslimka ah dhiigiisa iyo xoolihiisa waa ka xaraam qofka kale inuu ku xadgudbo ayaguna dhiigeennii bay banaysteen siday dhiigeenna u banaysteen dhiigooda ha loo banaysto ayaan qabaa anigu kuwii hadda wax dilahayay oo saddexda laga qabtay meeshaas ayagoo ka soo baxay meeshii waxaan jecelnahay dawladdu inay xukunka ku dedejiso inayna sii hilmaamin inay inta dhiiggaana uu qoyan yahay ayagana dhiigooda la daadiyo ee shabeella la suro meydkooda in la suro sababtoo diintaana faraysa in la suro civilization iyo ilbaxnimo iyo Mareykan iyo Western baan eedeynaya maaha sida islaamku nafarayo waa mufsidiin fil ardina waxa loogu tala galay in inta la salbiyo meydkooda la suro sida xibri ay surnaadaan siday ugu cibrad qaataan ilmaha yaryarka ee dadka leynahaya iyo kuwa la soo diray iyo kuwa soo diray kuwa waaweyn madaxda u ah ilmahoodii ogaada waxbarasho ugu jiraan ilmahooda dabka uma soo diraan ilmahooda dadka kuma soo diraan ayaguna safka ma soo galaan meel bay fadhiyaan waxay soo diraan ilmo islaameed oo dad kale dhaleen way kuwoodiina way badbaadsadeen qaarkoodna magaalooyin waaweyn bay degan yihiin oo ay wax ku bartaan xaasaskooda iyo ilmahooda magaalada waa in laga qabtaa nabad sugidda waxaan leenahay xaas shabaab waa jaajuus ilmahoodana waa jaajuus magaalada waa in laga qabtaa yaan waxba la yeelin laakiin ha laga saaro magaalada sababta guryaha ay ku soo dhuumanayaan iyo guryaha ay galahayaan iyo informationka ay sheegayaan waa ayaka waxaan leenahay sida ay noo diintu waa faraysaa qoladii kugu xadgudubtay waad ku xadgudbaysaa diintu saasay ku leedahay haddii lagugu xadgudbo waad ku xadgudbaysaa marka waxaan dhowranayna ma jirto waa inaan ku xadgudubnaa siday noogu xadgudbeen waa inaan ku xadgudubnaa dhiiggeenna ay daadiyaan waa inaan dhiiggooda daadinaa siday qalbigeenna u gubeen waa inaan qalbigooda u gubnaa marka haddaayna dhicin taasina waxay noqonaysaa wax xabis baa nala geyni waa nala cafini xabis baan ku jireen wana ku masruufi ma jirto dhiigga intuu qoyan yahay waa in la daadiyaa saddexdaas horta waa in la soo safaa meydkooda meesha la soo suraa ha ku quus laataan kuwa kale waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ka midooba cadowgaas ka midooba waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed la dagaalama idinkoo mid ah qabyaaladana iska daaya dadka hadda dhintay oo dhan qabiil kasta ku jira war dadkan ayay qabiilkii u socdaan way qabiilka qarsama ay kuwa qarsada ayay leynahayaan qabiil meeshan ma jiro qabiil maaha waa in ummadda dhan ay isugu tagtaa guri kasta waa inuu ogaadaa dariskiisa guri kasta waa inuu ogaadaa dadka la degan guri kasta waa inuu ogaadaa dadka soo gala waa inay sheegaan garaashyada baabuurta lagu diyaarinayo waa in la sheegaa waa in la og yahay waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay arrintan ka midayso inay midayso waa midayn doontaa inay midayso waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed tacsi labaad tacsi saddexaad tacsi kuma jirayno waa inaan istifaacno xaq baan u leenahay inaan istifaacno sharafkeena iyo karaamadeenna iyo hantideenna iyo dhiiggeennaba inaan difaacno waa shanta diinta ay u soo degtay in aan dhiiggeenna lagu difaaco in maaragtay hantideenna in cirdigeenna iyo sharafkeena lagu difaaco way marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ku midoo arrinna midaysa inay noqotaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa ummadda Soomaaliyeed inuu qulubtooda isu soo jeediyo ilaahay waxaan uga baryaynaa ummadda Soomaaliyeed inuu midowdo ilaahay waxaan uga baryaynaa ummadda Soomaaliyeed inuu ka dhigo ummad xoog leh ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii naga geeriyooday inuu jannadii siiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa kuwa naga dhaawacan waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed dacdada antii hore iyo tanba han noqoto mid ummadda Soomaaliyeed midaysa han noqoto mid ummadda Soomaaliyeed meel ay uga soo wada jeestaan cadowgooda ummadda Soomaaliyeed cadow aan lahayn shabaab ma laha waqti la is eedeeyo lama joogo waqti faraha la isku fiiqo lama joogo waqti waxaan la joogaa aan meel uga soo jeesanayna cadowga ummadda Soomaaliyeed